adeegsiga mobilada gacanta gaar ahaan kuwa loo yaqaan screen touch-ka oo si weyn sanadaha dambe looga isticmaalay dalkeena Soomaaliya ayaa waxay saameyn muuqata ku yeesheen ardayda waxbarata kuwaas oo kaga mashquula waxbarashadooda waxaana warbixin inooga diyaariyay waryaheena magaalada Cadaado Umar Ahmed Ibrahim. adeegsiga mobilada gacanta gaar ahaan noocyada loo yaqaan screen touch oo si weyn sanadihii dambe ugu soo badanayay dalkana Soomaaliya ayaa saameyn muuqata waxa uu hadda ku yeeshay ardayda waxbarata kuwaas oo kaga mashquula waxbarashadooda magaalada Cadaado oo kobac dhanka waxbarashada ah sameeynayay sanadihii dambe ayaa kamid ah meelaha laga dareemayo saameynta arrinkaas. tobankii arday wax ka baranayay dugsiyada magaalada Cadaado mid kamid ah ayaa wata mobilka gacanta waxaana suurtagal ah inuu kaga mashquulo waxbarashadii iyo casharadii uu qaadan lahaa. adeegsiga mobilada xilliga ay xiisaduhu socdaan waxa ay lumin karaan qaybo kamid ah fahanka ardayga ee casharka. si aan u ogaano saameynta iyo xeerarka iskuulada waxbarashada uga dhigan waxaan booqday dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Malik. xilligii aan booqday iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Imaam Malik waxa ay ardaydu ku jireen xiisadaha sida maalinlaha ah ay u qaataan. waa fasalka afraad dugsiga sare ee Imaam Malik oo ah fasalka ugu dambeeya waxbarashada aasaasiga ah. inta badan ardayda dhigata fasalkan waxa ay haystaan noocyo kamid ah mobilada caaqilka ah balse kuma dhex isticmaalaan fasalka gaar ahaan xilliga ay xiisadu socoto. waa arday kamid ah ardayda fasalkan waxa uu ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashada dugsiga sare ayaa ii sharaxay saameynta uu leeyahay mobilka xilliga ay xiisaduhu socdaan. inuu ardaygu ku mashquulo oo ku baxo oo isticmaalayo baraha bulshada oo hadartan dhibaatada weyn oo arintaas waa marka faa'iido inta ka mobilku faa'iido laba dhanba uu leeyahay faa'iidana uu leeyahay qasaarana uu leeyahay haddii loo isticmaalo oo waqti ama table aad u samaysato oo aad waqtigaas loogu talagalay isticmaasho mobilka faa'iidooyin fara badan uu leeyahay sababtoo ah marka casharada nala diro kale waxaan ka raadsanaa Google-ka iyo sida ay badi qireen ardayda aan kula kulmay iskuulka Imaam Malik wiilasha iyo gabdhaha way u siman yihiin haysashada mobilada inkastoo isticmaalka xilliga xiisadaha ay ku kala duunaan karaan. waa gabar kamid ah gabdhaha ku jira dugsiga sare gaar ahaan fasalka ugu dambeeya ee iskuulka Imaam Malik waxa ay News u sharaxday saameynta uu ardayga ku yeeran karo adeegsiga mobilka xilliga ay xiisaduhu socdaan. anaga ka arday ahaan horta faa'iido gooniyan oo maan telefoonka way anagu mid dad ganacsataa nin dad ardayna baagta noo soo xil saaray waxaan hooyinkeena noo soo diray inaan wax barano marka faa'iido weyn ma lahan sababtoo ah qofkan telefoonka ومشغولنا وقتي سألنا وكعنا قفك دي وحكي كنا تلفون كنا كشر ليه ما كده أنا قاعدين هني تلفون كان فائدة قاعد نقوم هاي صوبت فائدة مرة كل ليها ما كسر قصة خالنا يصير مدام بقارنا هندي الله فيديو واحد جاي استعمال عاد في سيجا عاد كاشر لما استعماله قفك مرة ترى إن بو قصة قدنا يا أما حل جبريج عمل قفك مرة عمل فائدة وقول له وح قصة يبسنة لكن فائدة مرة دنك الله فيديو وح فائدة نقوم على تلفون مرة لقي ما ده أرضي دكسيجا سراء sidoo kale waxaa mobilada haysta ardayda dugsiga dhexe sida fasalka 8aad Cabdirasaaq Xirsi Xasan oo loo yaqaan Suldaanka waxa uu ku jira fasalka 8aad oo ah fasalka ugu dambeeya dugsiga dhexe. qof ahaan waxa uu iskuulka u soo qaataa mobil aan ahayn midka caaqilka oo loo yaqaan Nicle sababta u soo qaato ayuuna ii sharaxay. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa waa Cabdirasaaq Xirsi Xasan oo ku magac dheer Suldaanka. telefoonka dhibaatada uu leeyahay aniga hadii wadiyo dhibaatada uu telefoonku leeyahay keegan waxaan soo qaatay in bareega aan ku bareegaysto laakiin ardayda kale waxa laga yaabaa inay imtixaan ayaguna ku bareegsaan laakiin hadhow qad ku isticmaalaan hooy u yeeray dhahan hooy soo socda u kaad hadhowna ku baashaalayaan. waa arday kamid ah ardayda fasalkan oo xilliga aan gudaha u galay ku guda jiray xiisada Carabiga waxa uu ka hadlay dhibaatada ay keeni karaan hadii ay fasalka ku dhex isticmaalaan mobilka xilliga xiisada lagu jiro. waa telefoonka dhibaatooyin badan uu leeyahay macalinka markuu xiisadaha ku jiro kale ardayda inay xiisada uga mashquulaan oo kale macalinka xiisada ku jiray ku dhex isticmaalaan dhibaatooyin badan marka uu leeyahay ardayda telefoonka markay ku dhex xiisada dhexdeeda u haysto. iskuul kasta xeer iyo nidaam ayaa uga degsan hadii ardaygu fasalka uu ku dhex isticmaalo mobil xilliga lagu guda jiro xiisada. Rufaaci Maxamed Xuseen
waa baradhiga maadada juqraafiga muddo 2 sano ah ayuuna ka shaqaynayay iskuulka Imaam Maalik waxa uuna sharaxayaa iskuul ahaan waxyaabaha ay ardada ciqaabta uga dhigaan haddii ay ku arkaan asagoo fasalka ku dhex isticmaalaya telefoon iyo waxa la samayn karo si loo baabi'iyo dhaqanka noocaas ah. anaga waxaan amar u qabnaa macallimiin ahaan oo aniga xitaa aan ku jiro ardaygii asoo mobile isticmaalaya la arko in mobilkaas laga soo qaado kadibna maamulka loo gudbiyo waa dareemi kartaa ardayga dhibaato fara badan ku yeelanaya haddana waa aragto internetka la soo daayay marka dhibka mobilku waa dhib fara badan oo ardayga mashquul fara badan u keeni kara xisidiisana ka lumin kara aad ma santa. dhanka kale waxaan xafiiskiisa kula hadlay maamulaha guud ee iskuulka Imaam Maalik waxa uuna samniyo u sharaxay waxa ay ku sameeyaan ardayda marka ay ku arkaan iyagoo fasalka ku dhex adeegsanaya telefoon iyo sida ay saameynta ugu leedahay fahanka ardayga ee dhanka casharka. runtii waxa nooga dangan shuruuc aan la dhaafi karin oo ardayga markii uu ku soo dhacana lagu qaado macallimiinta iyo maamulkuna intay ka shuureeyeen ama maaragtay ka shireen ay isku afkarteen sharciga waxa ka mid ah ardayga laga soo qabto mobilka haddii galaaska dhexdiisa uu ku soo dhaco ama asagoo ku isticmaalayo oo la arko in laga soo qabto macallinku uu soo qaado xafiiska uu keeno mobilkaas ka bacdina maamulku gacanta loo geliyo. waxa ka mid ah shuruucdan ka qaadno aan ku qaadno waxa ka mid ah macnaha ardaygan markii uu telefoonka laga soo qabto macallinku uu keeno hore digniin loo siiyo ardayga loogu sheegay ciqaabta uu leeyahay haddii galaaska dhexdiisa mobil ku soo dhaco ama asagoo internet ku jira lagu arko oo lagu soo qabto laba nooc way xogaa way kala dambeeyeen yihiin ninkii internet asagoo ku isticmaalaya lagu soo qabto galaaska dhexdiisa waa laga hayaa telefoonka laga qaadaa dibna looma siiyo ilaa waalidka uu ku yimaado markii uu waalidkiis yimaado keenana waalidka mobilka loo dhiibaa waxa la yiraahdaa mobilkan dhibaatadiisu waa soo noqotay marka dambe oo iskuulka ku soo noqdo la qabto oo macallin uu keeno waa la xareynayaa ilaa iskuulka uu ka dhamaado waqtigiisa 2 bilood oo fasaxa la gaaran. shaki kuma jiro in arday waliba oo isticmaala telefoon iyadoo xiisadu socoto oo sidaasi uga harayo sharaxaadda macallinka inkastoo sababta ugu weyn ay sidaasi u sameeyaan lagu sheego in ay xiisada ku caajisaan haddana ma ahan marmarsiyo laga aqbali karo maadaama waqtigiisa iyo qarashkiisa uu u horayo in uu waxbarto. Cumar Axmed Ibraahim, telefishinka caalamiga Sam News, magaalada Cadaado.